shirkan wadatashiga siyaasadda tamarta dalka oo muddo 4 maalin ah uga socday wasiirada wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo shirkadaha bixiya quwadda korontada ayaa la soo gabagabeeyay kadib 3 maalin oo looga doodayay dejinta siyaasadda tamarta dalka. furitaanka shirka oo ahaa mid uu daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa looga hadlayay sidii wada shaqeyn dhow u dhaxmari lahayd wasaaradaha tamarta iyo shirkadaha tamarta ee dalka ka shaqeeya. waxaana shirkan inta uu socday la ururiyay fikrado ku saabsan sidii siyaasad madaysan oo dhanka tamarta ah dalka u yeelan lahaa. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Marwe Fawziye Maxamed Sheekh ayaa saxaafadda uga warbixisay waxa ka soo baxay shirkan muddada uu socday. wadatashiga siyaasadda tamarta dalka Soomaaliya oo dhan waaye waxa isu yimid dowlad goboleedyada oo dhan oo dalka ka jira dowladda federaalka private sectorada iyo aqoon-yahano jaamiciin ummadda oo dhan waa ka soo qayb galeen. go'aanada laga gaaray waxaa ka mid ahaa wadatashiga waxa waaye qof kasta ra'yigiisa inuu ku daro siyaasadda oo tamarta. qof kasta ra'yigiisa waa ku darsaday, qof kasta hadalkiisii waa dhagaysanay, hal go'aanoo midaysanna waa qaadanay. warqadihii oo la qoray maanta la soo gabagabeeyey, laakiin in dib u habeen aan u suuqino waaye maadaama hadda ay noo dhammaatay shirkii ayadoo qoraan loo idiin soo gudbin doonaa. annagana dib aan u laabanaynaa, dib aan u soo habaynaynaa warqadihii hadduu ilaaha yidhaahdo. laakiin waa ku heshinay siyaasadda tamarta oo dalka waa lagu heshiyey. wixii hadal iyo muxuu ahaa qof kasta fikradiisana wuu ku darsaday. hadduu ilaaha yidhaahdona dib aan ula laabanaynaa. wax culays waxaa keenay policy aan soo diyaarin annaga haddaan dowladda nahay, markee waxa waaye muxuu ahaa tamarta waxay u baahan tahay ama waddankaba inaan raacno waaye muxuu ahaa sharci iyo siyaasad oo wax lagu hagi karo. laakiin haddii siyaasad la waayo oo waxba lagu suubiya wax lagu hago waxay noqonay fawda. dowladda waa nahay annaga, sidaa darteed inaa annaka iyo privateka intaas sano shacbiga ama quudinaayay ama iftiinka ahaa ma inkiri karno. inkastoo la dowrayay inay ka soo baxaan shirka walmurtiyeed ayaa haddana wasiiraddu waxa ay ka meermeertay shirka oo ay ku sheegtay in fikradihii ka soo baxay ee la soo ururiyey ay u baahan yihiin dib u habeyn, islamarkaana ay kala wadaagi doonaan saxaafadda 3 maalmeed oo uu socday shirka wixii ka soo baxay. mukhtaar sheekh aadan dalmar, telefishinka iyo raadiyaha dalsan, bulshan weyney baydhabo jinnaay.